Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada Tech Somali. Maanta waxaan rabaa inaan idin tuso sida kombiyuutarkaaga culayska looga baabi'iyo adigoo isticmaalayo hababkan soo socda. Kombiyuutarka mar walba aa isticmaalaysid daatada wax walba wuxuu save gareeyaa wax la dhahayo cache ama waxyaabo aan loo baahnayn oo aad u fara badan. Marka haddii aad doonaysid inaad waxaasoo dhan ka nadiifiso, step-yadan ayaa maraysaa. Ugu horreyn waxaa jira temp waxa la dhahayo kaleeto. Marka meeshan imaato kaleeto waxaa ku qoraysaa oo kaleeto calaamadan oo percentage-ka iyo temp aa qoraysaa. Temp aa qoray haddana calaamadda percentage-ka ku soo xiraysaa. Enter ayaa leedahay. Hadda waxaan meeshan u jeedid dhan waxa waaye history kombiyuutarka uu save gareeyay. Waxaan dhan waa qashin loomana baahna. Marka waxaa leedahay control A ama highlight saaray delete leedahay. Marka dhammaantooda waa tiraysaa. Weliba kombiyuutarka markaa sidaan sameynayso waxaa fiican adoo hadda kombiyuutarka soo shido oo start ku sameeyo kaleeto. Sababtoo waa kana hadda failashan ayuu ku dhagan yahay sababtoo Adobe anay ii furneyd hadda xoogaa ka hor. Marka adiga kombiyuutarka markaa kow soo shidid intaan ku bilaab marka mar labaad hadhow ku celi waxaan dhan waa ka tiraysaa. Waa step ugu horeeya kaas. Step-ka labaad aad maraysan wuxuu yahay haddana meeshaan aad imaanaysaa. Laba sib waa taabanaysaa calaamadda oo Windows-ka ay ku musuuran tahay iyo R aa isla taabanaysaa. Ama haddii kaleeto meeshan ayaa waxaa ku qoraysaa run. Ka bacdina waxaa leedahay run aa leedahay. Marka calaamaddaas run aa samaysid waxaa kuu soo baxayo box yar sidaan ah. Marka boxkan aragtid waxaa ku qoraysaa ereygan prefetch aa ku qoraysaa. Enter ayaa leedahay. Folderkan hadda aniga kombiyuutarkayga clean waaye sababtoo software ayaan isticmaalaa. Softwarekaasna gadaal ayaan idinkaga sheegayaa intaan videogan dhammaynin. Hadda step-ka labaad waa clean. Step-ka saddexaad waxaan sameynaynaa kombiyuutarka markuu soo kacayo waxyaabaha culayska ka dhigaya aan loo baahnayn ayaan ka xiraynaa. Anagoo tagayno meeshan search-gan waxaan ku qoraynaa msconfig aa ku qoraynaa ereygaas. Enter aa leedahay. Enter markaa dhahdo waxaa kuu soo baxaya box sidaan ah. Marka boxka sidaan markuu yahay aniga hadda waxaan isticmaalayaa Windows 10 badanaan way ka wada sameyn yihiin meeshaan oo kaleeto bootka ma u baahnin. Waxaan leedahay start up aan number 1 ka bilaabaynaa. Start up-ka markaan soo kicino kombiyuutarka waa kana waxyaabahan kombiyuutarka la soo kacayo meeshaan fiiri. Kuwaan hadda u jeedid disable waaye. Mar walba badanaa waxa aadan isticmaalin inaad disable ka dhigtaa lagaaga baahan yahay. Oo matalan oo kale hadda aniga waxaan dhammaantood waa kombiyuutar oo speedkiisa sare ayaan isticmaalaa. Laakiin hadda matalan kan oo kale disable leedahay. Kan oo kale hadda saacad waaye oo adduunka wadamada enable ay tahay. Marka aad disable saasaa leedahay. Markaas waa iska joojinaysaa. Kaas waa inta ugu bixinaa. Waxaan ku noqonaynaa qaybteeni boxkeeni. Meeshaan ay ku qoran tahay service-ka tagaysaa. Calaamadan hoos hide Microsoft kana check saaraysaa. Wixii inta ka soo baxo dhammaan wixii aanan markaas adiga muhiim kuu ahayn sida waxaa dhaafanaysaa antivirus oo kaleeto iyo waxay markaas adiga muhiim ku ah. Laakiin aniga hadda waxaan dhan muhiim ay yihiin waan dhaaftay. Adigana sidaas oo kale marka aad disable ka dhigtid ama aad jeegan tigta ka qaad ka bacdi okay dheh kombiyuutarkaaga wuxuu ku weydiinayaa start ma u diraysaa hadda markaas ha askale adiga. Haddana waan ku soo noqonayaa waxaan qorayaa mscon marka meeshaan intuu ku hoos qarsama marka qaarkooda okay ayaa leedahay. Marka sidaan u soo furtid haddana waxaad imaanaysaa meeshan ay ku qoran tahay boot oo kaleeto waxyaabahan oo kaleeto kan hadda loogadan oo kale meeshaan 5 second ay ku taho kale adiga 3 second camal iskaga qornay ama hal mid ka doontid. Waxaan oo kaleeto waxyaabo oo waxa kombiyuutarka soo daayay dhammaan waa iska cancel kartaa. Meeshaan ay ku qoran tahay advanced daa'imaatid oo kaleeto wuxuu ku leeyahay memory-ga aad isticmaalayso ku weydiinayaa. Marka aniga hadda waxaan isticmaalaa mid 16 GB ah. Marka adiga meeshaan maxaa processor-ka 8 marka ay yihiin marka waxaan leeyahay dhammaantood waa inaan isticmaalaa leeyahay. Haddii aan inta kan jack saaro intuu isku bedelaysaa dhammaantood. Marka wuxuu ku weydiinayaa sidee wax u rabtaa. Marka meeshaan ayaa saaraysaa memory-ga intuu USB oo ku yahay ayaa dooranaysaa okay ayaan dhahaysaa ka bacdi. Hadda anigu ii samaysay ka bacdi marka intaan ka soo gudubno waxaan tagaynaa qaybteeni kala ah markaas disk cleaning wax la dhahayo. Meeshaan waxaa ku qoray disk clean kana ku soo baxayo. Disk clean kan markuu ku soo baxo waa kana disk clean markuu ku soo baxo waxaa leedahay okay aa leedahay. Wuxuu sameynaa hole yar oo sameynaa ka bacdi wuxuu ku keenayaa meeshaan waa kana meeshaan ayuu ku keenayaa ka bacdi waxaa saaray jeega wada saaray waxyaabahan aan rabin dhammaantooda
marka waxaan sameynaysaa haddii aad tahay qof online wax kasoo download garaysta failkan waxaa waaye downloadkaaga waaye matalan video ama cashiro haddii aad soo download garaysata mar walba ka taxadir haddii kan asoo kuu saaran okay sii dhaadid wuxuu wixii downloadkaaga muhiimka ahayo matalan bilal ama sanado aad download garaynaysay oonan kuu save garaysin ayuu automatic kaaga tirayaa marka hadda aniga downloadka waa ka qaaday okay ayaan leeyahay wuxuu leeyahay waxaan dhan waa tirayaa yes ayaan leeyahay kabacdi waxyaruu wadayaa waa sugaynaa akay wuu dhameeyey marka intaasoo kale markaa samaysid kabacdi haddana waxaan u tegaynaa qayb kaleeto oo la dhahayo softwareka ah marka shaashadeeni haddii aan hoos dhigo waa kana softwareka idiin sheegayo waa kana kan waaye softwarekan aniga marka adiga free haddaa ku isticmaalaysid waxyaabo yar kaa xiraya oo aniga laakiin waa mid aan gatayaan isticmaalaya oo ujeedin meeshaan pro version ku qoran marka waxa kaliya aad sameynayso waxay tahay inaad sidan jack u siisid oo automatic failashaas oo asiga kaa soo wada qabto xoogaa ayaan sugaynaa waa kana wuu dhameeyey hadda marka wuxuu ku leeyahay waxaan ayoo keenay waxaa leedahay fix marka Google Chrome ka xiraya uu leeyahay linkigan ayaa hadda copy ka qaadanaya marka waxaan leeyahay okay anaba iska xiraya yes ayaan leenahay marka sidaas marka yes dhaadid waxaan waa ujeedin meeshan waxa ku qoran useless files oo kale iyo waxyaabahaas ku qoran kabacdi marka meeshan cleanka aan dhaadid kan waa general ahaanta kan system oo kale waa muhiimada kan ay matalan hool adiga marka gacan manual ahaan u qabanayso saacada ka qaadanayo ayuu kan kuu fududeynaya waxaan dhamaantood waa inaad jeeg saartaa scanner leedahay haddana kana computerkayga aniga clean waaye marka badanaa ma daahinayo sababtoo week kasta maalin ka sameeya haddana wuu dhameeyey kan wuu clean gareeyay hadda sidiisaba na ujeedin marka hadda wuu clean gareeyay waxaa ku xigoo kaleeto meeshan ee common ay ku qoranto oo kaleeto waaye waxyaabaha oo computerka fileska qaldan catchka waxa la dhahay iyo matalan kuwaan oo kale isagana muhiim waa inaad mar walba sidan u taabatid week inaad hal mar samaysid fiican ama automatic meeshan setting inaad tagtid adiga aad ku xiratid schedule ahaan week hal mar samee ama 24 saac sidaas inaad ku samaysid kan hadda ayuu dhameeyey wixii dhan wuu nadiifiyey marka clean oo kaliya ayaa leedahay automatic ayuu sidan ku dhameynayaa marka meelahan oo kaleeto advanced waaye makaa tiraya ku leeyahay hadda matalan slim haddaad aadid sidan dhammaan filekan oo ka tiraya meeshan waa waxyaabaha Windows ka soo download garaya update-ka ah hadda markuu dhameeyey marka adiga sidan ayaa u soconaysa kabacdi system meeshan oo kaleeto waa kana automatic asaa u sameeyo qaybtan privacy-ga waa matalan meelaha aad booqatay history-ga iyo waxyaabaha computerka meelaha aad gashay dhan oo ka tiraya ama online-ka ah kani waa sidaas intaas ayuu hawsha soo qabtaa marka iyo wuxuu kaloo wataa home-ka markaa taagantaa waxyaabahan waa inaad kusoo download garaysatid memory-ga kale speed-ka kale inuu waxyaabaha clean kaaga dhigo kaas markaan ka gudubno kana ugu muhiimsan asigane waa ogtihiin matalan mobile computerkaaga haddii xayeysiimo matalan page aad soo kiciso kaleeto oo meel qaldan kula aado kaleeto waxaa bixiyo kan ayaa bixiya asigane kan ayaa kaa tiraya asigane waa kana kan kore aan iska xiraynaa hadda waa ka dhamaanay kanna waxaa waaye asigane qaybahan wuxuu asigana kaa celinayaa xayeysiimaha kaleeto haddaad aadasaan quick start oo kale dhaadid kan hadda haddii computerkaaga waxyaabaha wuxuu kaa saarayaa haddii ay ku jiraan viruska computerada kasoo boodbooda meelahan oo kaleeto ay hadda fiir waxaana soo gelayaan kabacdi waxaa leedahay delayda leedahay xayeysiimaha mobile lacala haddii aa meel booqatid waaye qaybtan adka iyo waxyaabaha oo soo boodboodaya dhow matalan pageka markaa gasho kaa celinaya automatic asaa mar walba clean garaynaya sidan waa intan ayuu yahay haddii aa waxaan oo kale aa u baahatidna waxaa kasoo download garaysan kartaa linkigan aan hadda meeshan ku qorayo hadda ayaan koobiyey waa kana dhammaan meeshan ayay ku wada jiraan kii hadda aan isticmaalayo waa kana registry kana waa asigana midkii hadda aan isticmaalayo waaye dhammaan waxaa intaa kasoo download garaysan kartaa hadda matalan oo kaleeto kan oo kaleeto haddii aan fiiriyo oo sida u shaqeeya ahaan haddii downloadka oo kaleeto arabtid oo kale meeshan free download ay ku qorantaha taabanaysaa computerka waa kana waa kusoo shubay hadda wuxuu leeyahay meeshan kan inta ayuu ka kacsan yahay hadda nd ayaan leeyahay waa kana haddii hadda okay dhaa markaa soo download gareeyey wuxuu leeyahay computerkaaga ma ku shubaysaa mar labaad ayaan yes dhahaya haddii aad soo download garaysa sidan oo keliya ayaa ugu shubaysaa stepkan ayaa raacaysaa waa kana finish ayaa leedahay intaasoo keliya waaye marka isticmaal softwarekan wuxuuna kaaga dhigayaa computerkaaga xawaarihiisana aad u kordhinayaa
dhan walba. Waxaan kaloo kaa ilaabay haddii oo matalan computerka Windows aa isticmaalayso ama 7 ha ahaado ama 10 ha ahaado, meeshaan aad tegeysaa waxaa ku qoraysaa PC. meeshaan ay ku qoran tahay propertieska ku dhufanaysaa qaybtan oo qaybtaas ayaa tegeysaa. wuxuu ku weydiinaa maxaa rabtaa settingkaana tegeysaa. marka waxaa laga rabaa inaad doorato sidaan. kan waxaa waaye custom oo aniga ii yahay. waxaad dooranaysaa mar walba custom aad dooranaysaa waxyaabahan oo kaleeto oo hadda tusaale kuwan oo kale micno ma yeelanayaan inaa computerka animatic oo kale ku sameynayo kale waxyaabahaas oo kale iska tirtiraysaa. waxaa muhiim ka ah meeshaan oo kaliya inaad dhaafato laga rabaa. aniga kan hoos oo kaleeto xataa ma u baahni. kan thumbnail kan wuxuu ka caawinayaa matalan oo kale folderada sawirada oo kale markaa korgeysa sawirka aqoonsanayso hadhow wuxuu ka dhigaa wax oo error ku dhaca camal oo ka dhigaa haddii aad jeegan ka qaadid. marka intaan kaleeto waa iska qaadaysaa. ujeedaa sidaan markana tanne computerka ayuu load ku sameeyaa waxyaabahan animationka ah. halkan waa ujeedin marka systemka hadda okay aan dhahay waa dhamaatay. intaasoo keliyana waa ku sameynaysaa hadduu ilaahay yiraahdo. videogan haddii aad ka heshay please channelkeena subscribe ku samee haddii aadan hore ugu sameynin. kuna soo dhawow mar labaad pagekeena. asalaamu calaykum waraxmatullahi